goortii ciise ku dhashay baytlaxamtii yahuudiya waagii herodos boqorkii ahaa waxa yerusalem bari kaga yimid niman xikmad leh iyagoo leh xagee buu joogaa boqorka yuhuudda ee dhashay waayo bari ayaanu xidigtiisii ka aragnay oo waxaanu u nimid inaanu caabudno goortuu boqor herodos waxaan maqlay ayuu walwalay isaga iyo reer yerusalem oo dhan oo intuu isu ururiyey wadaadadii sare iyo culimmadii dadka oo dhan ayuu weydiiyey meeshuu masiixu ku dhalan lahaa oo waxay ku yidhaahdeen baytlaxamta yahuudiya waayo sidaasaa nebigii u qoray adigu baytlaxam oo dhulka yuhuudda ahay kuma aad yaridba caaqilada yuhuudda dhexdooda waayo waxaa adiga kaa soo bixi doona taliye kan dadkayga israa'iil u talin doona markaasuu herodos nimankii xikmadda lahaa hoos ahaan ugu yeedhay oo ka hubsaday goortay xidigtu u muuqatay kolkaasuu baytlaxam cid u diray oo ku yidhi taga oo ilmaha aad u doondoona oo goortaad heshaan isoo ogeysiiya si aan alla ugu taga oo u caabudo goortay boqorkii maqleen ayay tageen oo xidigtii ay bari ka arkeen ayaa hor kacday ilaa ay timid oo ay ka hor joogsatay meeshii ilmuhu joogay oo goortay xidigtii arkeen ayay farxad aad u weyn ku farxeen markaasay gurigii galeen oo waxay arkeen ilmihii iyo maryam hooyadiis wayna dhaceen oo caabudeen isaga oo intay qasnadahoodii fureen waxay isaga u dhiibeen hadyado dahab iyo beeyo iyo maalmal ah markaasaa riyo loogu digay inaynay herodos ku noqon oo dhulkoodii ayay jid kale u mareen goortay ka tageen malaa'igtii rabbiga ayaa yuusuf riyo ugu muuqatay iyadoo leh kacoo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo masar u carar oo halkaas joog ilaa aan kuu soo sheego waayo herodos ayaa ilmaha dooni doonaa inuu dilo wakhti habeen ah ayuu kacay oo ilmihii iyo hooyadiis kaxeeyey oo masar tegey oo halkaasuu joogay ilaa dhimashadii herodos inay noqoto wixii rabbigu kaga dhex hadlay nebiga isagoo leh wiilkayga ayaan masar uga yeedhay goortuu herodos arkay inay nimankii xikmadda lahaa ku ciyaareen isagii ayuu aad u cadhooday oo cid buu u diray oo laayay wiilashii yaryaraa oo dhan kuwii 2 sannadood jiray iyo kuwii ka yaraa oo joogay baytlaxam iyo meelaha u dhow oo dhan sida wakhtigii uu nimankii xikmadda lahaa ka hubsaday markaas waxaa noqotay wixii nebi yeremiyah lagaga dhex hadlay isagoo leh cod baa ramaax laga maqlay oohin iyo baroor weyn raaxeel oo u ooyeysa carruurteeda oo aan doonaynin in la qalbi qaboojiyo waayo ma ay joogin laakiin goortuu herodos dhintay malaa'igtii rabbiga ayaa riyo ugu muuqatay yuusuf oo masar jooga iyadoo leh kacoo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo dhulka israa'iil tag waayo kuwa ilmaha naftiisa doonayay waa dhinteen markaasuu kacay oo kaxeeyey ilmihii iyo hooyadiis oo dalkii israa'iil tegey laakiin goortuu maqlay in arkela'os meeshii aabbihiis herodos yahuudiya xukumayo uu ka baqay inuu halkaas tago markaase ilaah baa riyo ugu digay oo uu dhinacyada galili ku leexday wuxuuna yimid oo degay magaalada naasareed la odhan jiray si ay u noqoto wixii nebiyada lagaga hadlay waxaa loogu yeerayaa naasaraani